waxaa lagu guda jiraa toddobaadka xurriyadda iyadoo arbacadii aynu kasoo gudubnay ay ku beegneed 26 Juun oo ahayd 64 sano guuradii kasoo wareegtay markii ay gobolada waqooyi iska rogeen heeryada isticmaalka Ingiriiska. sidoo kale maalinta berita ayaa loo dabaaldegayaa munaasabada 1 Luulyo oo ah markii ay koonfurta Soomaaliya xurnimada ka qaadatay gumaystiga Talyaaniga iyo Israaciil labada gobol ee waqooyi iyo koonfur, waxaana lagu wadaa in saqda dhexe ee caawa la saaro calanka Soomaaliya. doc kastaba maalmaha xurriyadda dadka sida weyn uga qayb qaata waxaa ka mid ah dhalinyarada kuwaas oo isugu soo baxa goobaha taariikhiga iyo meelaha ay bulshadu u damaasha tagto. dhalinyarada ayaa ku soo labista dharka calanka taas oo bisha bilicda fagaarayaasha ay ku sugan yihiin iyagoo maalmaha xurriyadda buux dhaafiya dukaamada lagu iibiyo dharka calanka, waana kuwa koox iskula socda kuwaas oo wajiyadooda ay ka muuqato farxad ku aadan mudnaanta maalmihii uu dalkooda gumaysigu ka xoroobay. qaar dhalinyarada ka tirsan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa wajiyadooda ku xardha ama ku sawira calanka Soomaaliya si ay u weyneeyaan maalmaha xurriyadda. baraha bulshada oo ay Soomaalidu sanadihii ugu dambeeyay si aad ah u isticmaasho waxa maalmaha xurriyadda kordha sawirada iyo muuqaalada ay dhalinyaradu la wadaagayaan bulshada kuwa oo ay ku muujinayaan qiimaha ay maalmaha xurriyaddu leeyihiin. dhalinyarada dabaaldegaysa dhammaantood waa kuwa ku koray xaaladaha qalafsan ee ehelka u noqday dalkooda muddo ka badan 30 sano oo ay Soomaalidu baylaha ahayd. dhalinyaradan xusaysa maalmaha xurriyadda oo qulubtooda laga dheehan karo wadaniyad waqti badan kuma bixiyaan u kuurgelida waxyaabihii kala irdheeyay Soomaalida iyo sida ay dib ugu soo noqon karto midnimadooda. waxaase taa beddelkeeda ay diiradda saaraan weynaynta xuska maalmaha xurriyadda. sidoo kale dhalinta oo ay ku jiraan kuwa dhamaystay heerarka kala duwan ee waxbarashada ma abaabulaan doodo nuxurkoodu yahay isku soo dhaweynta Soomaalida isdiidan oo lagu lafagurayo tabashooyinka jira. qodobada ugu weyn ee arrintaasi hortaagan ayaa ah dhalinyarada oo aan ku baraarugsanayn cududooda iyo xaaladaha qalafsan ee dalka oo garaadkooda u diiday in dood cilmiyeedyo lagu xallin karo dhibaatooyinka jira maadaama ay duruus ka qaadanayaan siyaasadda Soomaalida oo ah mid ku dhisan qori caaradiis. dhalinyarada ayaana sidoo kale dib u heybin taariikhda dalka oo ay ku xusan tahay halkankii diiwaanka lagu qoray ee 13 dhalinyaro ee SYL u galeen xornimada dalka, taas oo u bidaamin lahayd inay yihiin xuduudda dalka rabitaankooduna uu yahay mid biyo kama dhibcaan ah. dib u soo kabashada dowladnimada Soomaaliya ee hana qaaday 10 sano ee ugu dambeysay oo wax badan ka bedeshay xaaladda amni ay qubaradu qaar u sababeynayaan inay tahay ahmiyadda qura ee fududeysay isu soo baxyada ay sameynayaan dhalinyarada. walaaca kale ee jira ayaa ah in la kala xakameeyay dhalinyarada taas oo koobtay isdhexgalkii soo celin lahaa midnimada, waxaana adag in wiilka ka soo jeeda waqooyi iyo midka koonfur ay si isku mid ah Hargeysa ugu dabaaldegaan xuska maalmaha xurriyadda iyagoo ku labisan dharka calanka Soomaaliya, taas oo muujinaysa heerka ay bulshadu kala fog tahay. si kastoo ahaataba dhalinyarada Soomaaliyeed oo boqolkiiba 75 ka ah bulshada ayaa ka dhigan inay yihiin nambarka ugu badan ee Soomaalida, waxaana waqtigan aqoon-yahanadu ay ku talinayaan inay baraarugaan dhalintu isla markaana mideeyaan cududooda si ay u yeeshaan riyooyin ay ka dhabeyn karaan oo ay ugu horeyso isu soo dhaweynta Soomaalida kala irdhowday. inkastoo waqtigan ay Soomaalidu kala qaybsan tahay isla markaana muddo 30 sano ay banaanka taagan yihiin gobolada waqooyi oo la baxay maamul la yiraahdo Somaliland kaas oo gooni isu taag raadinaya, haddana dhalintu waxay muujinayaan boholiyow iyo daljaceyl walow aysan mar qura dhadhamin milgaha midnimada misana waa kuwa naawilaya in mar Soomaalidu midoobaan waase filasho ay ku dahaaran yihiin daruuro hubanti la'aaneed. Say